mar walba waxa uu ducayn jiray qofka sidan sameynaya, laakiinse wax aqoon uma lahan qofka maalin kasta bacda u dhigaya meesha. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. soo dhawaada saaxiibayaal, waa mar kale muuqaal cusub. muuqaalkeena waxaan ku soo qaadan doonaa qiso aad u cajiib badan. waxaa jiray qoys Ilaahay hanti iyo lacag siiyey, waxa ayna ku noolaayeen qasri aad u weyn. guriga waxaa waardiye ka ahaa nin miskiina. qoyska hantida Ilaahay uu siiyey nin ka mid ah ayaa maalin walba soo baxa, isaga oo markaana qaadan jiray gaari aad u qaaliya. markasta uu guriga ka sii baxayo, waardiyaha ayaa salaama, laakiinse nasiib daro isagu kama uusan celin jirin salaanta. maalin walba sidaas ayuu samayn jiray. ninka waardiyaha waa uu salaamaa, laakiinse isagu waa uu iska dhaafaa. maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxa uu arkay ninkii taajirka ahaa ninkii waardiyaha ahaa oo bac meel ka qaadanaya. bacdaasna waxaa ku jira cuntadii hadhaaga ahayd ee xaafadda ka soo hadhay. aad ayuu ula yaabay ninkii taajirka ahaa. ninkani nolosha uu ku nool yahay. ninkii taajirka ahaa isma uusan dareensiinin miskiinkii, waa uuna iska dhaafay. maalintaa xigtay ayaa waxa uu soo qaaday ninkii taajirka ahaa bac ay wax walba ku jiraan cuntooyin kala nooca. waxa uuna u dhigay goobtii uu ka qaadanayay bacda. waxa uu isdhahay bacdaadii soo qaado, laakiinse waxa uu arkay wax la yaab badan. waxa uu arkay bac ay ku jiraan cuntooyin kala nooca, cuntooyinkaasoo lasoo diyaariyey. waa uu la yaabay, aad ayuuna u farxay, waa uuna iska qaatay, isagoo oonan danaynayn cidda meesha soo dhigtay. maalin walba waxa uu soo qaataa bacdii, taas ay ku jiraan cuntooyin la diyaariyey. waxa uuna u tagaa qoyskiisa. aad ayay ula yaabeen, waxa ayna dhaheen, xaggee baad ka keentaa aabbo raashinka diyaarka? mar walba waxa uu u ducayn jiray qofka sidan sameynaya, laakiinse wax aqoon uma lahan qofka maalin kasta bacda u dhigaya meesha. maalintii dambe waxa uu guriga ka maqlay buuq aad u badan iyo sawaxan, waxaana loo sheegay in uu dhintay ninkii taajirka ahaa, kaasoo mar walba salaami jiray isagu, laakiinse aan salaanta ka qaadi jirin. xaafadda waxaa jooga dad aad u fara badan. geerida iyo tacsida ayay yimaadeen. isagu maanta bacdiisi waa uu waayey. waxa uuna aad uga warwarsan yahay inuu ilaaway ninkii maalin walba bacda meesha u soo degi jiray. haddana waxa uu iska dhaadhiciyey dadkii tacsida joogay qof ka mid ah inuu maanta bacdiisi qaatay. aad ayuu u gaajoonayaa, baahi badanna waa uu dareemayaa. maalintii labaad ayuu haddana sugay, laakiinse bacdii ma taalla meeshii. waxa uuna iska dhaadhiciyey dadkan faraha badan in ay sii qaadanayaan. xaaladdiisu aad ayay u xumaatay. waxa uuna isku dayey in uu la hadlo haweeneyda uu ka dhintay ninkii taajirka ahaa, isaga oo markaa ka codsanaya in ay mushaarka u kordhiso ama shaqadan shaqo ka lacag badan inuu daydaydo. waa uu u tegey, waxa uuna ku dhahay, waxaan kaa codsanayaa inaad mushaarka ii kordhiso. aad ayay ula yaabtay. waxa ayna tidhi, muddo aad u badan ayaad noo shaqaynaysay, mushaarkan aadka u yar miyaad ku noolayd? laakiinse maxaa sababay maanta inaad iga codsato in mushaarka lagu kordhiyo? waxa uu naga sheekeeyey qisadii bacda. waxa uu ku dhahay, maalin walba waxaan heli jiray bac ay ku jiraan cuntooyin diyaarsani, kuwaas ayaana iska qaadan jiray maalin walba. waxa uuna isweydiiyey sababta ay isugu soo beegmeen dhimashada ninkan iyo bacdiisii inuu waayo. waxa uu haddana soo xasuustay qaabka uu la dhaqmi jiray ninkaasi mar walba uu salaanta ka qaado, laakiinse wax xumaan oo kale kuma uusan arag weligii, taas oon ka ahayn inuu iska dhaafi jiray marka uu salaamo. haweenaydii aad ayay u ilmaysay, waxa ayna dareentay in ay baahi ka muuqato. maalintii dambe waxay bilowday bacdii inay halkeedu ku diyaariso, laakiinse sidii hore way ka duwan tahay. markii hore bacda dhulka ayuu ka qaadan jiray, iminka waxaa gacanta ka saaraya wiil uu dhalay ninkii dhintay. bacay ku jiraan cuntooyin fara badan, waxyaabo badan oo guriga looga baahan yahay ayuu wiilkii ninkii dhintay maalin walba gacanta ka saaraa. ninkii waardiyaha ahaana mar walba waa u mahad celiyaa wiilkii yaraa, laakiinse wiilkeedii ma uusan ahayn mid la hadla. wiilkeedii waa u keenaa maalin walba bacda, laakiinse waxa uu ku dhahaa, waad ku mahadsan tahay. ilmaha yarna
laakiinse wiilka yari ma uusan ahayn mid hadla. Maalintii dambe ayuu ninkii waardiyaha ahaa aad ugu dhawaaqay isagoo u mahadcelinaya. Wiilkii yaraa waa uu hadlay, waxa uuna dhahay, iga raali noqo, ma taqaanaa sababta aan maalin walba kula hadli waayo? Waan dhaga culusahay sidii aabbahay oo kale. Ninkii waardiyaha aad ayuu u ilmeeyey, waa uu yaabay, waxa uuna la yaabay malihiisii xumaa. Waxa uuna dhahay, waxaynu ka malaysanaynaa dadka qaarkii waxyaabaha ay nagu samaynayaan inay yihiin wax xun. Waxaa laga yaabaa qaarkood inay cudurdaar haystaan. Maxaa yeelay mar walba oon salaamo sababta uu i dhaafi jiray ma uusan i maqli jirin. Allah subxaanahu wa tacaala qur'aankiisa waxa uu ku leeyahay, malaha barhkii waa dembi,